这个车子已经有30多年了，这是佳佳丢失的前2个月给他买的，我一直给他保存着。当想他的时候，我就会看看这个车子，想想他当时骑这个车子的时候那个身影。Assalaamu calaykum. Hooyadan oo lagu magacaabo Li Qingqi ayaa in ka badan 30 sano raadinaysay wiilkeeda, kaasoo la waayay isagoo aad u yar gobolka Shanxi ee bartamaha Shiinaha. Mao Yin, oo lagu naasi jiray Cha Cha, ayaa dhashay 23 February 1986. Mar ay hooyadiis ka warbixinaysa ayay tiri, waxa uu ahaa wiil aad u edeb badan, baari ah, aadna u caqli badan. Ma jeclayn inuu ooyo, wuxuuna ahaa mid firfircoon oo aad loo jecel yahay. Li Qingqi iyada iyo odaygeeda waxa ay ku heshiiyeen in ay geeyaan wiilkooda Mao dugsiga barbaarinta carruurta yaryar. Aabihiis ayaana subax walba u kaxayn jiray dugsiga, galabtiina marka uu shaqada ka yimaado hore u soo wadi jiray. laakiin nasiib darro 17 Oktoobar 1988 abbaare 6dii aroornimo ayaa la afduubtay wiilkii yaraa xilli aabihiis uu kaxaynayay xanaanada carruurta. iyaga oo wadada socda ayaa Mao waxa uu weydiistay aabihiis biyo uu cabo. biyihii intuu uu ku maqnaa ayaa wiilkii yaraa laga afduubtay bartamaha magaalada Xi'an ee gobolka Shanxi. inkasta oo ilaa hadda aan la cadayn cidda afduubatay Mao, baaritaanna ay ku wadaan booliska, haddana waxaa la sheegay in Cha Cha laga iibiyay qoys deganaa baadiyaha gobolka Sichuan oo qiyaastii u jirta 750 kiilomitir halka laga afduubtay. Mao Yin oo ahaa wiilka kaliya ay dhashay Qingqi, suuragal uma ahayn inay ilmo kala dhasho. siyaasadda China ee ah in qoyska hal cunug dhalo darteed, waxay ku haminaysay inay wiilkeeda ku dadaasho korriimadiisa iyo waxbarashadiisa si uu horumar u gaaro. siyaasadda Shiinaha ee ah qoyska in loo ogolaado inuu dhalo kaliya hal cunug ayaa la soo saaray sanadkii 1979, iyadoo ujeedkuna ahaa in la xakameeyo tirada dadka Shiinaha oo si xawli ah u koraysay, sidoo kalena la yareeyo faqriga. lamaanaha magaalooyinka ku nool waxaa loo ogolaa inay yeeshaan hal ilmo oo kaliya, halka kuwa ku noolaa miyigana ay heli kareen mid labaad haddii cunugooda hore ahaa gabar. yacni lamaanaha miyiga ku nool haddii ay u dhalato gabar, waxaa loo ogolaa in mid labaad ay dhalaan si ay wiil u helaan. siyaasaddan yareynta tarmidda ee Shiinaha ayaa la rumaysan yahay inay sare u qaaday kororka tirada afduubka carruurta, gaar ahaan wiilasha. laakiin Qingqi waxba kama ogeyn arrintan. mararka qaar TV-ga waxaa laga soo dayn jiray ogeysiisyo ku saabsan carruurta maqan, laakiin weligay uma malayn in wiilkayga la afduubtay oo la iibiyey ayay tiri. in ka badan 20 sano oo ay Li Qingqi raadinaysay wiilkeeda, uma aysan suuragelin inay hesho. laakiin sanadkii 2009 dowladda Shiinaha ayaa sameysay xarun kayd DNA ah, halkaas oo lamaanaha ay ka lumeen ilmo iyo carruurta ka shakisan in la afduubtay waalidiintoodana aan garanayn ay iska diiwaangelin karaan DNA-gooda si loo diiwaangeliyo. haddii ay dhacdana la isugu raadiyo carruurta iyo waalidiinta kala maqan. tani waxay ahayd tallaabo weyn oo hore loo qaaday, waxayna gacan ka geysatay xalinta kumanaan kiis. bishii Abriil ee sanadkii hore, Li Qingqi qof ayaa la soo wadaagay warbixin wiil isagoo yar laga soo afduubtay magaalada Xi'an oo ah halka laga afduubtay wiilkeeda. qofkaas ayaa u soo diray sawirka wiilkan oo nin weyn ah. Qingqi sawirka ayay la wadaagtay booliska ayaana soo helay ninkii, waxayna ku qanciyeen inay ka baaraan DNA-ga, uuna ka aqbalay. 10 May ee isla sanadkan ayayna soo baxday natiijada baaritaanka. booliska ayaa sidoo kale usbuucii xigay waxay Li Qingqi oo ah hooyada wiilkan ka baareen dhiigga loo yaqaano DNA. ugu dambeynna waxaa shakali aan soo baxday in labadoodaba ay yihiin hooyo iyo wiilkeeda. kadib 32 sano oo raadin ah, waxaa guul ku soo afjarmay howlgalkii hooyadan dhibanaha ahayd ee Li Qingqi. 8 maalmood kadib oo ku beegneed 18 May 2020 ayaa loo doortay maalinta midowga hooyadan iyo wiilkeeda. xaflad ayaana loo qabtay. ka hor kulankooda, Li Qingqi waxay aad uga walwalsanayd sida uu u garan doono wiilkeeda, maxaa yeelay isagoo aan 3 sano gaarin ayaa ugu dambeysay hooyadiis, mana xusuusan karin. waxaa maalintaas si toos ah xafladda u tabinayay TV-ga dhexe ee dowladda Shiinaha, China Central Television, oo loo soo gaabiyay CCTV. waxay hal mar shaashad u qabatay Mao Yin oo markii uu arkay hooyadiis inta dhankeeda u soo carara kuna qaylinaya hooyo. qiiro iyo farxad ayaa howlkii isqabsaday. 32 sano kadib, qoyskii kala maqnaa ayaana halkaas ku midoobay. daawadayaal, mawduuceena maanta halkaas ayuu noogu egyahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.来了吗？我到死过来都不知道我还有一个生母啊！让爸爸放你啊！
了。